الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا aad wada ka warqabtaan in annaga markastaba aanu soo tabino wixii siyaasad ee marxaladda maanta uu marayo dalkeena Soomaaliya aan ka munaaqashoono oo aanu ka hadalno taasi ay danta ku jirtaa. runtii idinkana halka wada fadhiya caawa waxaan isku raacnay wixii maanta aanu ka hadalnay inaan halkaan iyadoo tafatiran inaan ka jeedino. markaan u sii gudi galo maanta arrimaha laga hadlayay waxaa ka mid ahaa maxaa inoo qorsheysan ilbanaadir waxay yiraahdeen maxaa inoo qorsheysan oo aanu ka doodi lahayn higsiga 2016 iyadoo aad ka warqabtaan in maamul goboleedyada runtii ay hantiyeen goboladooda. tan ugu dambeysana uu sheegay madaxweynaheena xasan sheekh maxamuud inuu yiri maamulka ugu dambeeya waa maamulka hadda loo sameynayo Hiiraan. marka ka banaadir ahaan idinka ka banaadir ahaan maamulka ee gobolka banaadir xaaladiisa say noqon doontaa ma isweydiiseen su'aashaasi idinka ma isweydiiseen halka wada fadhiya taasaa maanta laga hadlayo maxay ku dambeyn doontaa gobolkiina maxay ku dambeyn doontaa gobolkiina maanta gobolkiina miyaad ku noqoteen ajaanib. marka waa arrimaha maanta aan falaqaynay oo aanu ka hadalnay oo aanu tafatirnay qodobada ka mid ah waxay xambaarsan tahay inta maanta aan halkaan kusoo sheegay. runtii waxaa kaloo laga dhawaajiyey dadka aan degaankana nahay oo aan la nahay maxay arrinta ugu aamusan yihiin arrintan maxay ugu aamusan yihiin ayagana ma loo baahneenoo inay soo istaagaan oo ayagana ay araahdooda ka dhiibtaan wax alla wixii danta gobolka banaadir uu ku jiro. ayadoo aad ka warqabtaan in Kismaayo loo fadhiyo in laga munaaqishoodo higsiga 2016 annagoo xog ogaal u ah in maqaamka magaalada Muqdisho ee gobolka banaadir lagu qaybsado hadday noqon lahayd 4.5 ama degmooyin. arrintan waa wax u baahan in beesha banaadir iyo xigtadeeda in ay si degdeg ah ugu soo istaagaan si loo soo dhiciyo xaqa gobolka uu tabanayo iyo in xukuumadda ay ogaadaan in gobolka banaadir layska indha tiray oo aad moodo inuu jiro sadbuursi iyo isirnacayb. sideed ka banaadir ahaan u arkaysaan haddii reer banaadir loogu madax banaaneeyo maqaamkooda ee gobolka banaadir uu leeyahay? sidaad ka warqabtaan horta ogaada sidaad ka warqabtaan in farq kaligeeda ay fooldhaqaynin ay u baahan tahay midnimo in la sameeyo oo dadka deegaanka nala ah in gacmaha laysqabsado oo gobolkayna loo istaago ayaa loo baahan yahay si aan maamulkeeda u hantino oo wax ku doorano aan xoogga saarno in nin kasta gobolkiisa loogu madax banaaneeyo in nimaan gobolka aan u dhalanna inuusan hoggaanka waxba ku lahayn. taasi in la wada ogaadaa loo baahan yahay. waxaana kaloo loo baahan yahay wixii qowmiyaddeena dan ugu jirto ee reer banaadir in lagu midoobo. waxaana loo baahan yahay kale inay midoobaan gobollada aan ka soo jeedno sida marka baraabe iyo banaadir. maxaa yeelay dastuurku wuxuu dhigayaa 3 gobol iyo wixii ka badan waa israaci kartaa. waxaana lagu gaari karaa inaan awood ka helno dadka deegaanka nala ah si ay ayagana loogu karaameeyo inay gobolladan ka soo jeedaan xamar iyo xamar degaali iyo wixii iga maqanna oo lagu soo kordhin karo oo ay ku jirto maslaxada reer banaadir waa loo baahan yahay. wabilaahi tawfiiq.